shiinaha iyo reer galbeedka loolanka cusub ee deegaan siyaasadeed weecashada shiinaha iyadoo ay faa'iidooyin badani ugu jiraan bariga dhexe iyo Afrikaba misana arrintani waxay daboolka ka qaadaysaa loolan cusub oo deegaan siyaasadeed dawlado badan oo reer galbeedka ah ayaa aad uga walaaci doona saameynta kordhaysa ee shiinaha Mareykanku wuxuu si gaar ah uga walwalsan yahay waxa uu isagu ugu yeero diblomaasiyadda dabinka deynta maadaama uu awood raadin siyaasadeed ka dhex arko deymaha shiinuhu siinayo dalalka soo koraya wadamo ay ku jiraan Sri Lanka iyo Zambia ayaa kari waayay inay iska bixiyaan deymihii shiinaha waana qodob ka kordhiyay baqdinta laga qabo heshiisyadani ilaa inta ay sii jiri karaan reer galbeedku judhiiba way ka falceliyeen dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee shiinaha sanadkii 2011 dalalka G7 la isku yiraahdo ayaa daahfuray qorshahooda la yiraahdo B3W oo noqonaya badiilka hindisaha suun iyo wado ee shiinaha qorshahoodu wuxuu maalgashanayay kaabayaasha dhaqaale ee dalalka dakhligooda hooseeyo iyo kuwa uu dhexdhexaadka yahay si kastaba B3W durbadiiba ma bilaabman lacagtii loo qoondeeyena waxay aad uga yaraatay maalgelintii shiinaha shuruucda adag ee B3W ayaa keenayay in indho taxadar qaba lagu dhowro inuu bilowga hore maalgelin xoogan u baahdo iyo in mashruucu uu muddo jiitamo tanina waxa ay u diidaysaa inuu ilaa iyo xad la yoyotamo hindisaha shiinaha ee BRI la'aanta habab maalgashi oo toos ah waxay curyaaminaysaa qorshaha B3W waana dhibaato weyn oo wiiqaysa dalalka reer galbeedka sababtoo ah in shiinaha dhaqaale ahaan lala googoosta waxay u baahan tahay ficil wax ku ool ah maalgelin dhab ah iyo ka go'naansho dawlado badan oo Afrika iyo bariga dhexe ayaa aad uga taxadara inay dhibano u noqdaan dagaal qabo oo dhex mara shiinaha iyo Mareykanka beddelka ay la kala safan lahaayeen waxay doorbideen inay isku si ula macaamilaan muruqweynta dunida oo ay mid walba dhaqaalihiisa dheefsadaan dalalka khaliijka sida Sacuudiga iyo Imaaraadku waxay ka dhabeeyeen isku wadka muruqweynta oo iskaashi amni ayay kula jiraan Mareykanka shiinahana waxay la leeyihiin mid horumarinta dhaqaalaha la xiriira sidoo kale dalalka Afrikaanka ah ayaa si ay maalgelintooda u helaan si isku mid ah ula macaamila muruqweynta bari iyo kuwa galbeedka khaliijka oo si qunyar ah ugu irkaday dhanka shiinaha iyo Aasiyaanka mid ka mid ah isbedelada ugu waaweyn ee sanadihii dambe la arkay waa in dawladaha ku bahoobay golaha iskaashiga khaliijku ay aad u quurdareynayaan shiinaha iyo Aasiya awal waxa ay ku daabnaayeen reer galbeedka si gaar ah Mareykanka balse haatan dawlado ay ka mid yihiin Sacuudiga Imaaraadka Carabta iyo Qatar ayaa aad u doonaya inay samaystaan iskaashiyo dhaqaale oo kala duwan yaraynta ku tiirsanaanta lacagta ay ka helaan saliidooda iyo inay wax soo saarkooda suuq cusub u helaan isbeddelkan tartiibta ku socda waxa uu dhexaad u noqday cilaaqaadka kordhaya ee shiinaha ay la yeesheen ilaa shiinuhu noqday saaxiibka koowaad ee baayac mushtarku kala dhexeeya khaliijka isweydaarka ganacsiga labada dhinac dhex maray 2021 wuxuu dhaafay $180 bilyan oo dollar 2030 waxa lagu wadaa inuu gaaro $300 bilyan oo dollar saliid oo kaliya maahe bal waxa kale oo haatan ku jira mashaariic horumarineed oo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ah iskaashiyo dhaqaalaha digitalka iyo kuwa tamarta dib loo cusboonaysiiyo tusaale ahaan hiraalka Sacuudiga ee 2030 oo uga dan leeyahay inuu ku dhimo ku tiirsanaanta saliidda ayaa aad uga soo baxaysa
hindisaha suun iyo waddo ee Shiinaha ee PRI. Arrintanina waxay maalgashiga Shiinaha u soo jiidaysaa kaabayaasha waaweyn ee Sacuudiga iyo mashaariicda warshadaha sida magaalada mustaqbalka ee Neom. Imaaraadka oo muddo dheer ahaa xudunta ganacsiga dunida ayaa mar kale xajistay booskiisii marka loo eego hiigsiga dhaqaale ee Shiinaha. 2021 shirkado Shiinaha laga leeyahay ayaa qandaraasyo caaqibo leh ka helay Imaaraadka Carabta, ayna ka mid tahay horumarinta dekadda Khalifa oo ah halbowlaha saadka ee ganacsiga u dhexeeya Shiinaha, Imaaraadka, Bariga Dhexe iyo Afrika. Aagga xorta ee ganacsiga Imaaraadka iyo sida uu istiraatiijiyadda ugu yahay Aasiya, Afrika iyo Yurub ayaa macno gaara u yeelaysa inuu soo jiito riyada Shiinuhu maagan yahay ee ah inuu hindisihiisa ku xiro suuqyada caalamka. isla mar ahaantaana dowladaha khaliijku iskumay koobin Shiinaha oo qura, bal waxa ay ballaariyeen cilaaqaadkooda dalalka Aasiya, gaar ahaan Hindiya, Koonfurta Kuuriya iyo Jabaan. Imaaraadku wuxuu hanti fara badan ku maalgashtay suuqyada tamarta iyo tiknoolajiyada Hindiya, halka shirkadda Sacuudiga Aramco ay heshiisyo dhowr la saxiixatay warshadaha Hindiya ee saliidda sifeeya. Si la mid ah Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa noqonaya saaxiibo u dhow dalalka khaliijka bacdama ay u tafaxayteen inay u jeestaan tamarta dib loo cusboonaysiiyo. Saamaynta heshiisyo wada jir ah oo lagu soo saarayo hydrojiinta iyo tiknoolajiyadda deegaanka u roon. Weecashada ay dowladaha khaliijku u irkadeen dhanka iyo bariga ayaa ka dhigan isbeddel weyn oo ku yimid halbeegoodii hore oo awal u camaysnaa siyaasadaha dibadda ee reer galbeedka oo qura. Inkastoo ay weli sidoodii xiriir adag ula leeyihiin Maraykanka iyo dalalka reer Yurub, misana dowladaha khaliijku uma daymala ah inay reer barigana boos fiican uga fadhiyaan mustaqbalkooda dhaqaale. Isbeddeladani kaliya mowjado dhaqaale ma riixayaan, sidoo kale waxaa meesha ku jirta sida isriixriixa dowladuhu uu u kordhayo, taasoo dedejinaysa in jihooyin kala duwan dunida looga taliyo.